أصحابي maantana waxaan idin hayaa koox tuugo ah oo dhac u geysanayso nin xoog maalata ah oo ka ganacsada caanaha. Ninkani ayaa caanaha wuxuu ku diyaar gareeyaa jeegagan kadib waxa u yimaada nin ganacsada ah oo caanaha isagana sii iibiyo. Intuusan ninka imaanin ayaa waxaa ninkani si farsamaysan ugu yimid koox tuugo ah. Kooxii tuugada ahayd caanihii jeegaga uu ku diyaarinayay jeeg ka mid ah ayay si farsamaysan xarig ugu qaateen kadib waxay ku shubteen digsigaas oo kor u saaran. Kadib ninkii caanihii hadda wuxuu bilaabay inuu jeegii tirtiro caanihii oo diyaar gareeyo oo yiraahdo markaan bis waa maasha Allah ninkii ku imaanaya is diyaar gareey. Ninkii ayaa imaanaya isagoo socdo oo soo doontay caanihii. Waa tira kooxdii tuugada ahayd waa u jeedaan caanihii ayaa la baxday laakiin ninkii ganacsadaha ayaa yimid oo soo doontay caanihii. Ninkii markuu labada jeeg midna kor u qaaday oo caano ku jira mid ka kale ayuu caanihii ka waayay laakiin wuxuu ku ogaay ninkii caanaha maaragtay diyaarin jiray oo ka ganacsanayay wuxuu arkaya jeegyo faaruq ah oo xabad caana aan ku jirin laakiin wuxuu leeyahay ma dhici karto si camal. Ninkii wuxuu leeyahay niyo waxaad diyaarisay malaha iga daan niyo caana maanta waa isoo lugoysay maxaa igu soo sheegi waayay haddaadan caana haynin. laakiin ninkii wuxuu leeyahay arag si aan ku qancinaa bal arag caana jeeg caana baa ku jiray walaahi ayuu leeyahay laakiin sir maqabe kooxdii tuugada ayaaba imaanayso oo leh annaga ayaa caana hayno haddaad caana rabtid. laakiin ninka wuxuu leeyahay inta ka keenteen caanaha aniga xoolaba ma qabtaan laakiin ayaga waxay leeyihiin nimankii tuugada ahay annaga caanaha waa soo gadanaa waana sii iibinaa. ninkii ganacsadaha ahaa ee caanaha gadanayay iyo ninkii laga gadanayay inta boosaas ayay ku qancinayaan oo waxay leeyihiin niyahow maanta anaga caano ku hayno soo bax anaga caano ku soo sawireen. ninkii oo ninkani caanaha ka ganacsado faraantigii uu lahaa ayaa wuxuu raacay caanihii dhexdooda laakiin wuxuu caanaha hadda faraantiga wuxuu ku dhex jiraa digsiga. kadib nimankii waa kana caanihii ayay halkaani ku shubayaan inay saafi yahay waa u jeedaa kadib waa kana digsiga ayaa waxaa ku harayo faraantigii ayuu ninkani ganacsadaha ka helayaa. faraantigaasna wuxuu aaminsan yahay inuu leeyahay ninkii caanaha ka ganacsanayay oo xoolaha lahaay. kadib wuu u soo noqday intuu yimaaday wuxuu yiri niyahow caanaha lay keenay adiga ayaa iska leh nimankana waa tuugo faraantigan soo adiga ma lihid ayuu leeyahay. aniga iska leh waxaan ka dhaxaylo leeyahay digsiga caanaha ku jira ee nimankan ii keeneen nimankana waxaa ogaata tuugo waaye marka waa inaan qabataa uu leeyahay aysan ka faqin. marka tuugnimada faa'iido ay leedahay ma jirto wax xaraan siin baro lagu sameeyay faa'iido ma laha marba ay ka soo baxaysay marka waa inaad xoogaaga ku shaqaysatid mar walba. tuugadii sidaan ayay ku fashilmeen waa u jeedaa ayagoo isla maanta waa faa'iideen laakiin khasaare ayay meesha ka dheefeen.